السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن ميل كستو aad joogtaan halkani waa kaftankii siyaasadda iyo waliba Ali Xaraare haddaba barnaamijkan waxa isku soo dibirida soona diyaariya Ali Xaraare haddaba bal Ali Xaraare waxaynu ogaan doonaa bal meesha oo bal kaftanka siyaasadda ay maanta in la aadi doonto intaynaan u guda gelin Ali horta marka hore barnaamijku soo dhaw wad maasantahay marka labaad aliyow dadweyne badan oo Soomaaliyeed ayaa wax isweydiiyaan yaasinow barnaamijkan waa barnaamij aad u qosol badan adiguna waa qososhaa laakiin ali marnaba ma qoslo ali adigu maxaa qosolka mi ku dhamaado bilay dano dadka waxaan ugu jawaabi lahaa waxaan sir hadaad labadiina iska garab qososhaan dadkii qosol u hadmaayo iyana inay qoslaan bay doonayaan marka wax moodayaan barnaamij labadeena ay ku raaxaysanayno oo labadeena qosleyno marka waxaan ugu tala galay design-ka barnaamijku inuu noqdo mid adiguna aad qosolka ka dhargisid dadweynaha aniguna aan soo gudbiyo sheekooyinka jira ee wadankeena ka jira marka xaqiiqda way ali barnaamij maanta maxaad noo haysaa dad badan oo ila soo hadlay dad badan oo email ay noo soo diray ay igu yiraahdeen barnaamijkeenu kaftan ma maahay waa xaqiiqba haye marka waxaan doonayaa dadka inaan u sheego in barnaamijkani macluumaadka ku guda jira ay run yihiin ama wararku aanay ahayn warar aan cid kula kaftamayne ay tahay habkan u dhigno baa kaftana marka way la socdaan in waxan ay yihiin information jira oo la dalkooda ka socda way ku bilaabo haye wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dekada magaalada Boosaaso laga iibiyay muddo 30 sano shirkad Imaaraatiya oo la yiraahdo DP World waxay hore u iibsatay 30 sanadood iyana dekada magaalada Berbera wasla shirkadii marka dhinaca reersiga xeebaha waxa la wareegi doona mustaqbalka soo socda labada sano soo socota DP World haye waxa halka maraakiib maraya iyo waxa halka kalluun maraya shaqo kuma leeyin hawshiina ma haye iyaga iskale haye tan ugu dambeysay Boosaaso waa kiis ka daba noqonayay Cabdulla Maxamed Algaas sax meesha la yiraahdo Dubai waxay saxeexeen heshiis 30 sanadood in shirkadda DP World la siiyo ama iibsada ama laga kireeyo dekada Boosaaso heshiiska waxay ku tilmaameen sax mashruuca in la yiraahdo mashruuca ballaarinta dekada laakiin mashruuc dekad lagu ballaarinayo 30 sanadood ma qaatay waa 2 years marka waxay ahayd hadii la yiraahdo mashruuca ballaarinta dekadu وين لا قرتا إنه تهاي لبص سنوات كبعدنا إسكتجيا صدّن سنوات أي هالك فرديا هالك سجوجيا سمال لان ينو كبر شكت هشيس كاسو وحيلان صدق حلاتن سنوات أي شوقي دونان تضوى سنوات بغريان صدّن بفرديا اتكفر فرص هذا بجت وقتها صدمي هي دبيتو هشيسك لبص سنوات أي دكدا أي دي سنوات هي نمان كاس هي waxa ku bixi doona 2 sanadood qiimo dhan 330 milyan oo dollar wow waa lambar badan weey dhererku waa 450 mitir length depth-kuna waxa weeyaan 12 mitir ayaa dekada la qodi doona la hagaajin doona waayahay heshiiska wali ma cadda qoraalkiisii xaqiiqda ahaa ee la saxeexday qodobada uu dhigay haye wali ma cadda kii hore baarlamaanka ayaa lagu mariyay khasab labada gole ee Soomaaliland marka wala approve gareey uu meel maray kan wali ma geeynin baarlamaanka Puntland laakiin baarlamaanka Puntland uu ka duwan yahay baarlamaanka Soomaaliland ka Soomaaliland cabaar baa la murmaa cabaar baa la saqaqsadaa debate baa la sameeyaa marmar waa la sabaxdayaa marmar waa la isfeeraa wacankaas waxa way muujinaysaa lafteeda dimuqraadiyad dadka qaarna ay raali ka yihiin heshiiska qaarna ay diideen sax Puntland taas kama dhacdo sabaxdana kama dhici karto hal horjooge ay ma dhigta loo sheegay in la approve gareeyo aroortun bay imanayaan dabeetana nin walba wala raaciya hadii qashinkii nuclear-ka yahay iyo hadii dahab la soo dejinay yahayba shaqadooda baa haye waxa ku abuuran ninka parliamentary-ga ee Puntland yaan shaqada laga erin shaqadaada hayso shaqadaada ilaasho kan kale Soomaaliland waxa inta badan ku badan qofku inuu sida wadaniyada ma aha wadaniyada ma jirto meesha ninka iska cil
meesha ku soo baxo hal ugu barto adagi baa tahay oo idaacadaha ka hadla oo wax diida oo caynkaas moogta inaad tahay haye heshiiskaas dad badan baa aaminsan in Cabdulle Maxamed Cali Gaas uu heshiiskaas soo dhameeyay laakiin sheekada dhabta ah ayaan guud gali doonaa waa ajaayib haye waxa la socday wasiirkiisa kalluumaysiga Saciid Maxamed Raage oo sida lagu sameeyay wasiirnimada looga dhigay wanagii kaftanka siyaasadda hore uga hadalay nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Jaamac oo ahaa wasiirka kalluumaysiga oo ay isku lafiyeen waliba ayaa looga qaaday jagada habeen badh goori habeen tahay haye Saciid Maxamed Raage waa wasiirka kalluumaysiga waa nin hawl la damacsan yahay oo heshiiska inuu ka qayb galo la doonayo subaxii markuu waagu bariyana baarlamaanka la marin iyo golo wasiir loo sheegay ayuu diyaaradii u horsay wuxuu la raacay Saciid madaxweynaha oo la raacay Dubai bay bilaabay tan iyo xilliga heshiisku uu soo socday haye laba qof ayaa heshiiskan ka dambeeya oo soo dhameeyay deelka imaaraadka ka soo dhameeyay sax mid waa Safiya Cabdulqafaar Xaaji Xuseen gabadh la yiraahdo haye Mareykan Virginia degan haye gabadhaas Safiya Basi baa la yiraahdaa Safiya Basi iyada horta soo dhameysay barnaamijka ma sha Allah haye soo dhameysay maxay ka tahay dawladda Puntland haye kuwa jirto kama mid ah iyada soo xirsaartay marka waa qofkii ugu horeeyay ee isagoo aan xukuumad ku jirin xukuumadda Puntland heshiis international noqonaya soo dhameysay haye dabeetana Cabdulle loo yeero iyo ka kalluumaysiga la yiraahdo barkaalaha aan arinta Safiya noo sheegtay aynu dhiilkeeda galno haye waayahay waxa kula jira Safiya heshiiska nin xildhibaana oo laga soo doortay Jawhar Hirshabelle جور اي عدو علي قيسي baa la عبدو علي قيسي عدو علي قيسي waxay maadeer labaad yihiin Xasan Sheekh Maxamuud waa waray haye marka wuxuu haystay contract ahaa dekada magaalada Muqdisho oo Amazon uga wakiilaha u soo dejin jiray saad ku soo dejin jiray iyo rasaas iyo batrool wax u baahdaan saakir jiray isaga contract qaatay haye dabad Xasan Sheekh ayaa la isku dhacay haye حسب با كونتراكي ka kansalay marka haye marka xanaaqi ayuu madaxweyne isoo sharxay sabna madaxweyne isku soo sharxay haye laakiin nasiib darro wuxuu helay 16 cod oo qura waa lambar yar 16 kii cod ayuu farmaajo ugu riday farmaajo uu galay ayuu ugu shubay haye dabeetana farmaajo markuu meeshii qabsaday ayuu isna laad ku kiciyay haye ninkii uu soo dhaweyn waayay haye ninkana waa nin khatar ah haye Mr. Cadow wana khatar weyn ninkaas Cadow wuxuu sameeyay arrimo fara badan oo dawladdan sidoo isaga celin lahaa ayaa ku jirta haye cilmaan meesha la yiraahdo cilmaan oo Hirshabelle imika ka tirsan ayaa imika uu doonaya inuu xalxaadho haye oo dekad weyn oo caalami laga sameeyo oo Banaadir iyo Muqdisho iyo dekadaanba aan hoos uu ku eriyay markaa waa ajaayib haye dekad caalami ayuu rabaa inuu meesha ka sameeyo isaga markaa ku dhaliyay fakarka madaxweyne Cali Cusub Siyaad oo maalin hadlayo lahaa cilmaan annaga iskale waa dekadeena Hurwaa iyo dhinacna annaga iskale kaaraan bar baan leenahay waa fartii Cadow isaga dhigay waxa loo damiyay digleeyahay cilmaan in shirkad iyana la keeno company ama Arab ha noqdo wuxuu doonaa noqdo sax haye beetna hawlihii meeshii lala galo haye ninka Cadow la yiraahdo Cali Geesay iyo Safiya Cabdulqafaar Xaaji Xuseen Safiya Basi ayaa soo dhameeyay hawsha heshiiska waa maxay hadaba dhibaatada reer Puntland soo food saartay haye iyagoo hubsan baa oo aan eegin heshiiskani ma u dambaa mise umadana baarlamaanku ha soo maro ay durbo wax bilaabeen khamiista soo socota ha laga soo qayb galo xafladii taageerida dekada boosaaso oo la iibiyay adduunka waa lagu dhigayaa taageerada marka reer Somaliland may sameeynin taageerada in dibadaha lagu sameeyo waa ku mudaharaadeen waa bilcaks qoladan Puntland waxay ku leeyihiin waxa loo dibaal degaa marka hadda uu soo tiray heshiisku muxuu dhigayaa ma buu akhriin ma garanayo daadar ma adigoon heshiiskii akhriin ayaad hudheel iska soo qabanaysaa lagu dibaal dego والله وعجاي هوتيلكاس halkan hotel bay kaga dhigan tahay iyo in la ciyaaro muusiga la ciyaaro hilib baan taageersanay marka heshiiskaas wuxuu dhigayo wali lama oga shaqada dambe ayaan ku soo qaadan doonaa
waxa uu dhigi doono laakiin dadweynaha Ha. aan soo bandhigno Ha. sawirada Ha. heshiiskii la kala saxeexday oo Cabdiweli iyo ay ka dhex muuqdaan wasiirka kalluumaysiga Ha. Safiya Cabdiqafaar Ha. Safiya Basay Ha. Cadow Cali Geysay Ha. rag oo dhan baa ku jira Ha. marka hore aynu dadweynaha tusno وعجيب وي سفي عم بوضح مقدار اوكي محمد عبد الله فرماجه مدحنا فدرال الصومالي اي اسونا هذا اوك اعتمايا ما شاء الله يراهدو اماراتك هي يوسف جراد ها oo arrimaha dibadda ayaa ka horeeya haye labadoodu waxay hor fadhiisan doonaan dawladda imaaraadka oo hor fadhiisanaya haye si wuxuu jiraan bileen haye xaalad xaq u socotay ila wadankayga oo dhan baad wada qabsateen xeebihii sidee wuxuu jiraan meena laba dawlad ahayn wuxuu la iska weydiin maayo wixii ka soo baxa iyana waynu arki doonaa haye Puntland niyo markii ugu horeysay aan arko Cabdiweli oo arrin cadaalad u yaro dhow qabtay way haye markii ugu horeysay ama aan kulli ama arkay dadka kale mooy wax cadaalad u yaro dhow ay sameeyay haye ma sha Allah wuxuu shaqadii ka joojiyay wasiirka xanaanada xoolaha Cabdi Jamaal baa leeyahay oo shaqada joojin ku sameeyay shaqada waa laga erimaa haye waa laga jooji shaqadii baa laga jooji haye waliga ma maqal shaqada laga jooji may okay inta soo dhimanta arrinku ku saxsan waxa weeye Cabdi Jamaal waa dadka corruption-ka safka hore kaga jira Puntland waa dadka ugu horeeyaba dadka ugu horeeyay haye marka de it's too late haye haba arkay de goor dambe ayuu arkay haye noo maxaa tusay ya waxa isay ismay arkeen nimba dhinaciisu budda aan ka dabaalanay ceelka kaga jiray waxa isay doorkan 5 milyan oo dollar oo dawladda federaalku ay siisay xanaanada xoolaha ee Puntland ba meel martay la waayay ayaa la waayay haye waa la ismariyay haye 5 milyan 22 milyan oo dawladda federaalku ay ugu deeqaysay maamul goboleedyada oo xoolaha loogu talagalay ayaa 5 milyan oo kamid ah oo Puntland la siiyay xanaanada xoolaha ilaa hadda Cabdi Jamaal lagama hayo ajaib waa dhibaato caadi ah waa dhibaato meel martay marka Cabdi Jamaal uu ugu talagalayo dibadda guriga ka iibso business iyo samayso haddii shaqadan laga ariyana waa isku filantahay adiga iyo wiilka dhashay ku sii dhalay ayuu aaminsan dad iyo shacab maata baad u shaqaysaa ma aaminsana Cabdi Dubai ku maqay markuu soo noqdo shaqo joojin buu marayaa xilka wareejin ma dhici doonta ayaa dhici doonta xoolo fara badan yaasino ayaa bakbaktiyay oo dhintay oo abaaro iyo dayac iyo dhibaato u dhintay haye ilaa isku sawirin abaaraha ilaahay baa keenay waa musiibooyin dunida ka dhaca sax laakiin xoolaha dhintay badankooda laba nin ayaa u sababa haye 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 waa laba wasiir haye wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliland iyo wasiirka xanaanada xoolaha ee Puntland labaduba laba shaqadan garanaya maaha ma baahaba ma yaqaanin ba ma yaqaanin haye waa nin military oo loo dhiibay wasaaradda caafimaadka oo kale duu wareeraya waa wareer weey iska wareer weey marka muddadii waxaan xisaabiyay labadooda ahayeen kumaankum xoolaha baktiyay ya lama aragba wali haye nima u dhinteen waxay labadooduba siiyeen dawooyin expire ay dadkii rimiga u qaybiyeen qaata yiraadeen tiro haye ayaa xoolaha u dhinteen hadda waa sheekadaas waa sheeko jirta maaha kaftan haye xoolihii ayaa meeshii ku baabay dambas bay noqdeen wallahi billahi kuwari Soomaaliland wali dadka dambas bay ka dhigeen wali kuma soo oogin cukuse xoolaha la siiyay dawooyinka expire-ka ee bakbaktiyay laakiin Puntland ayaa imika ka dhawaajisay in Cabdi Jamaal uu kal hore siiyay xoolihii dawo expire oo wada baktiyeen haye mas'uuliyadaasna iyana waa mid xisaabteeda leh haye oo loo baahan labada maamul haye in ay ku xisaabtamaan haye arrintan halkaasaan kaga tegi doonaa waa sax niyo waxaan eegi doonaa qodob tiiraanya leh oo aqliga oo gadaal u soconaya muujinaysa xilligan lagu jiro ee 2017ka
oo dadkii lagu barakicinayo oo dadkii lagu dhiirigelinayo inay qabaa'il iyo reero u dagaalamaan ajaib ayaynu ku soo qaadan doonaa haye salaadiinta iskood isu magacawday salaadiinta iskood isku magacawday Soomaaliya haye salaadiinta rasmiga waa salaadiin ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf mudan waana ixtiraamina salaadiinta iskood isu magacawday sax ee bugta ee dadka ay matalayaan ay og yihiin inaguna aynu ognahay caalamka kale iyo Soomaalida kale ay og yihiin ayaa dab kula wareegaya shacabka haye markii hore waxay jiijiitaan dawladda iyo waxaasba imika inta ka gudbeen ayay shacabkii doonayaan si toos inay u hadlaan oo yiraahdaan dagaalama taasa wareera isku diro tusaale waxaan soo qaadan doonaa mid toddobaadkan media warbaahinta ka hadlay oo la yiraahdo boqor badmadow weligeed ma naan maqal ma baqalaydo boqor badmadow shafku garaacaya haye anaa hargeysa iskale haye Soomaaligiisa la macneeyo reer Burco haddii aanayna dooran haddaan reer hargeysa nahay carar ha ku sii noolaadaan hargeysa waa dhaar wey haye xabad bal kala daalna haye afkaasi af xitaa hadalla taagan maaha waa hadallo bareera oo aan dagaalana waskensi dagaalkan waxba isma hubtid okay wuxuu doonayaa inuu ku hadlo afkii reerka uu matalayay haye laakiin reerkaaga markaad matalaysid waxay ku qurux badan tahay af wanaagsan aad ku matisid saas wey buurmadow waa la xidhay jeelkaa la dhigay marka oday dhaqameed baa la xidhay haddaad maqasho horta oday dhaqameed maaha maba ahaba waa bug oday dhaqameed ama suldaan ama ugaas ama haddii ilaahay ku reeb boqor lama xidho waayo kelmadiisu waa duco iyo nabad hadii jeer cibadee see loo xidhaa haddii la xidhana oy dhacdo in la xidhana shacabkiisii oo dhan ayaa ku soo jaba marka waa la arkayaa ninkan inuu yahay nin miisaan culus haye badmadow cidhiba kama daba tegin lama eeginba markii la xidhay cidhiba kama daba tegin inna lillahi taas hada wareer waaya marka waa wareere dadku waxay leeyihiin wuxuu ninkan doonaya dadka isku diro laakiin anigu si kale ayaan barnaamijkeena kaftanka ugu dhigaayo waxaan siri wuxuu doonayay inuu caan noqdo waa soo bixi lahaa inuu soo baxo oo jira isku quraan oo idaacado quraan dee inaba waa inaga barnaamijka ku sheegnay maanta waa soo baxaya marka wuxuu doonaya haddaba inuu si gurracan caan ku noqdo qolooyin kale u jawaabay iyaga laftoodu ma dhaamin oo haddii dee nin iska hadlo noocaas lama jawaabo waa inuu aqboojisid marka ninkan cawaandibu iska dhigaya qolooyinka dee iska moog tahay ka soo gudub magacyada ay la baxaan ayaad garan karaysaa in fartu ay ku gudan tahay nimankan dee ismagacaabay waxaad maqlaysaa boqor badmadow boqor buurmadow suldaan isfurfur suldaan cune suldaan habaar salaadiinta waxaa loo bixiyo dee waxaa salaadiinta magacii waa dileelay haddii salaadiin ay ahaan lahaayeen magacyo qurux badan ayaa loo bixin lahaa naanaysahan wada cuno iyo habaar iyo fur balaayada lama yidhahdin waxa wada madow waxaa jira buurmadow waxaa samaysmay badmadow cir madow baa soo socday cirka wadhow jigadaas waa bannaan tahay cir madow haye cir madow malaha waxaa iyana samaysan doonaa oo u bannaan tahay galbeedka burco way arrintaas iyaga buraha joogay okay Soomaaliya waxay muddo raadinaysay waxa la yiraahdo aqoonsiga ay raadinaysay Soomaaliya waxa ka horeeya nimankan markaan sheegaynay ee ismagacaabay ee isku magacaabay salaadiin iyo boqor horta iyagu ictiraaf intaan Soomaaliya ictiraaf kale adduunyada ka doon iyagu ictiraaf raadsadaan saldanadana way ictiraafsanaysaa ciduma ictiraafsanadee nimankan ictiraaf u baahay hadda iska tiraahdo wadan boqorka ahayd ama Suudaan amba saako oran kara tan labaad inaad Suudaan noqotid hargeysa ama Soomaaliland ama aad noqotid boqor waxa ka xiga $4,000 ma afar kaliya adoo yaasiin marka Britain ka dhigi karnaa tomorrow waa laga dhigi karaa $4,000 ba ka xigta only $4,000 jagadaas magacii baa dhiman marka waxa loo baahan yahay boqor hebel ama suldaan hebel laakiin haddii lagu yidhaahdo suldaan yaasiin ducaale ducaale durba maahan suldaan maahan halkaas ku hadhaya
adun bas magacaabay haddii aabbaha loo yimaado ka waran oo la yidhaahdo wiilkaaga suldaan buu noqday way ajaayib sideedaba odaygii baa wuxuu leeyahay oo waxaan ku weydiiyey ma yarkaygiiba siduu u noqday odaygii baa yaaban badee odaygii baana ka dhaadhacay waay baashi dhaxalka wada ka tagtay iyana hadalka badinin aan dadweynaha ku soo dhaweyno bal hadaladii gurracnaa ee foosha xumaa oo la isdhaafsaday boqor ninka isku magacaabay boqor badmadow oo ummadda soo dhex dhigay say u hadlaan maan maanta ula hadlaya bariga burco waxaan leeyahay ninka siyaasad la wadaaga waa nin carruur bariis la wadaaga waar annagu inii iman mayno codkayagana waa lagu qasbantihiin inaad annaga noo codaysaa meel habeen nooma inaan iman inagu annaguna inii iman mayno waad ku qasbantihiin haddii aad dooran weydaan ninkaasi hargeysana la wada joogi maayo caasimaddana la joogi maayo wallaahi caliyow dadkii waa kala diray yaa madaxa hadduu shacabka Soomaaliyeed waxaan u gudbinaynaa in midnimadu ay fiican tahay inay gacmaha isqabsadaan in ay qabiil iyo habar iyo waxa dadkan ay akhriyayaan la iskala tago in dadka wada degan ee reer Somaliland ay yihiin dad walaala dani ka wada dhaxayso ay wax wada qabsadaan saaxiibtinimo iyo xiriir wanaagsan iyo walaalnimada ayaa ka macaan waxaan dadka ay sheegayaan iyo qabiilkan iyo reerkan haye good luck ban leen qoladaas waaye aan ka gudubno halkaana haye coldoon oo muddo ku xidhnaa bil iyo xoogaaya xabsiga dhexe ee Hargeysa ayaa 2 sano lagu xukumay 2 sano 2 years haye markaan waxa ayaan daraa coldoon oo la leeyahay wuxuu isla soo sawiray farmaajo oo 2 sanadood la siiyay iyo nin kale dagaalama boqorka oo Britain la soo deynay taas wareera ninka shacabkii islaanta waa kala sharcigu yuu qabtaa markaa sharcigu ma ninka miskiinka ee haddii waxtarkiisa la eego coldoon oo miisaanka la saaro uu waxtarkiisu badanayo ya kafadu kor bay aadaysaa kor buu baxaysaa kan ay tameeyay ee kafadiisu hoos u dhacday cidila hadlayso wareer anaga haye wadin wareersan waa wareer xabsiga dhexe ayaan u diray telefoon haye waxaan la hadlay maxaabiista xabsiga dhexe Hargeysa haye waxaan coldoon sidee loogu xukumay 2 sanadood haye iyaga weydiis xabiist idinku soo aragtaan anu dadka dibadda joogaba ma doonayo Hargeysa iyo Burco iyo qurbaha ma doonayo idinka xidhan ninkan coldoon sidoo aragtaan haye marka waxay ugu yiraahdeen ilaa inta ilahaas dhowr qof ila hadlay waxay ugu yiraahdeen warna coldoonka annagaaba u sii duceynayno lahayn ilaahu uu nala sii joogo maxabiista ka heshay 2 sanadood maxabiista xidhay haye حبيس باني ونو نيكا مسكين كي وناكسن سيدا لبا سنو حدو حداين نيو معلم بنو هايو نيكي دين تند مساجد كجمعان إسقى تشيا تفسير كإسقى نو أخري حسابت إسقى نو دقة عربي إسقى نو دقة إمك أنتي مدة شنو فرتك عشان نوتشو وانو برادنا ونيجي شغال في عم بجالك هيا يسوون نين حبسي كلا تعلبة ماها إمكو كتبتي سي دب ولا صباح كتب أنا بريها تشانس وهي أيوه هذا الصباح هي مركا استقل لفتيسة أيها أبى دردر عصب أو أكتيفيتي وناكسن أو محابيس تاكل شغلات سيدا درادي إيش هي ذي بابا نقول سؤال سؤال وديك محابيس تاكل كذي وحنا مركا أوجد بيننا حكومة Somaliland إيضا إمكو حكم كدعي مستر عالدون إن أود بقول له إله بقى أود للدولة إن أي سامح له أو إذا هذا عفي مسامح ما قال هذا قال أركاس وونا عن حمان هين ين حكومة ده أيان كفر دون شكون كلا Somaliland كتيرة أيانو مر إيجدنا أيضنا وحويان سدح ماير دوق مجال بربرة دوق مجال عرقابو يدوق مجال ذا قبلي سدح لو سوي هانشرين حسب عد بهانشرين فيصل على ورابي وها قدوم يا سدح لين با ويكبح العيد واحد قال كل 100 لو صدح لي كل 100 ولا قال صدح لي هي دبيتنا فيصل دعوت بكسو اوغي ومحكمه قدوم لي صدح ثاني ايغو عيده او ما يراه ايين بين نقدين مرقوره كل 100 markaas hadii ay kulmiye galeen xisbiga ay xaq u leh in saddexda magaalaba ay noqdaan maayiradooda oo la bedelo ayay la xisbiga ka baxay ayay markaas sharcigiiba la eegaya ma dhigayaa ninku inuu xisbigan ka baxo kan galo inuu shaqadiisa hore sii haysto faysal waxa dib malaha mu akhriyo dhicay ka martay faysal waxa ka dhigan tahay
markuu 3 bilood joogaba dacwad gee waa isgee maxkamadda maxkamadda waa ka wareersay dacwadiisa badatay dacwadiisa waa badatay ya maalin boqof ay bas haystaan marka xisbigan horta la yiraahdo ucud xisbi la geli kara ma malaha jelba adoon ku jirin bil ayaa dacwadda maxkamaddu waana diirgarooda way lawyer kaaga haystaa dacwaddu heshiiska Faysal la gelisin waa in magaalada dhan maxaad ka noqotaa way la ogyahay ya waraaqo waaweyn oo maxkamadda markay heshiisay marka dadku way iska ilaaliyaan xisbigaasna dhibaatada ayaa ka taagan marka wuxuu ku eedeynaya nimankaas kulmiye galeen maxkamadda isagii baan kulmiye number 1 سيجي بابا هي هشيس دي بي وول هشيس كلا خاتم لا جليو أرقدك حقا مصبح أوتك دو كرمير تجي حق هور أضاء سيجي بقى كرمير نمبر 1 سيجي بقى كرمير كتير تطبقوا يا ذيريا تطبقوا يا ذيريا هي يعني أنت برامج أنت كلا قيبتك كلا إيه نانجلي أي واحد يرقض أنا كسر قاعدين شرني وأنا كهالي شرني فنانين عدك حن له عدك حن إيه هذا أنا هسا إنه سجود هذا إنه هيسي دتك ميرها تري iyo dadka waxaan ka saaray aanay u sheegay intaan inaga inoo iman way loo sheego leeyahay codka uu iska si uu yahay nagada saasa marka saa lagu soo dhigay gabadh aan doonay magaceedana sheego ayaa nagu soo dhaweyn doona oo waliba waxa qaaday heestii magol lama doonto magol lama la isma dhawaado magol marka barbara tahay magol agteeda lama doonto iyo maxamed salbaani heestii magol ayay qaadaysaa bal iyada aan ku nasanno intaynu qaybta kale barnaamijka u gudbi doono malaw qoray liruux malo shubayhi qofna saanta dhabarkiyo mobile feera jacaylig malaw qoray liruux malo shubayhi على أنت حاجة قررنا يا أنت روح عجيبوي أنا حتى قصر كرماي وذي يريد هذا هو قصر وياه هستا أنت ما كيقول مني وحنتي دونا بلقبلي هاي وأنا هروش شيء إلا بابور وقاد كقادة يبابور ركلا أوصرين يراشين يسلا أمش الصمران نيكي عشور تقاد لها أو محمود حاش أديرو هاي ويسكتجي هرجيسة إسكتجي دبي ترى بابور تمرك العشور وبرعاية عرقاب إسكتجان دبل لقى قاضو هي والله يرعاه كنترول كواحد صار دفتن بلقبلي صار دفتن ورم علمي شو كير من نقطة لما كي قاد كسكلها أيا this week قام بقارين بقارين أيه وحنا خسارة ما نقول لبو جناح بين فوشنا وحن سمعنا نكى ماشي شو حيل قاد كسكلها ورير برعو سونا لكن وبرعو وقلبتك برعو وصح وحيلي مرد دي سلا أي شرتو وان اسكتجي هايو وحن دقيقة ماشي أنا كلبيرك باورت مركب وجه لك ما دام كلبيرك على وسع شورة صلى الله وبارك هي سرك بيرك نقص وجوري بالله قبل قاد دم مردونا مجرو يصرين دم مردونا مجرو وعنا قبطين قبل كا داد مرين oo siilaan yasamay waxa lagu hayaa cidhiidhi xagga dhaqaalaha cuna qabateen baan ayaa la saaray ninkaas wuxuu saa u yeeray baa leeyahay markii aan wararka xooraansanay reer balugubadle waxay alliance leeyihiin wax xulufo leeyihiin ama isbahays leeyihiin xisbiga la yiraahdo wadani ayo daw khalad هي arrinta ku degdegay marka ninka customka haysta iyo maxamed xaashiyo reer balugubadle waxay ka urinayaan ودن ودن هام بلغ ورنيا marka weyn dingad lagu dhiftaayo xaqi dhaqaalihi laga cunqabatay laga cunqabatay waxyaalihi facility loo sahli lahaa ee nolosha weynaan loo geyn sax ilaa inta bal ay kulmiyada yana geli doona ka geliya reer gubadle wada tashi bay kuma qaynayaan sidii ay yeelahay haye halkaasna siyaasad baa ku jirta haye qodob kale ayaynu geli doonaa haye qodobka sax weeye abaarihii imka dhacay ee dawladda federaalku waxay lacago taageera u dirtay maamul goboleedyada iyo Soomaaliland Soomaaliland waxa loo diray 200 Puntland 150 galmudug 150 hirshabelle 150 Jubaland 150 gobolka Banaadir $100,000
gobolada SSC sool iyo sanaag iyo cayn $100,000 wow haye $100,000 sool iyo sanaag iyo cayn ayaynu isha marin doonaa kaasina dul istaagina haye xildhibaanada khaatumo SSC matala ayaa arrinka ka soo midhadheliyay in $100,000 la siiyo $100,000 marka ugu horeysa waxaan eegi doonaa Sheekh Baaruud oo ka hadlaya lacagaha sida loo kala siiyay bal clipka marka hore aan daawan waxaa kaloo 100,000 u dirayba oo hadda aan diray oo gacantanadaba ka baxday $100,000 oo aan ku hagaajinay sool iyo sanaag iyo cayn oo iyadana duruufo laga soo sheegay marka lacagta guddigu go'aamiyay inay si dhaqso labadan maalmood ee soo socoto u baxaan si fiican buu qaybiyay وقيبي سمح اوكي بقول لك كنا مقرا سعودي اس سي بان سين ويدو way qaateen waaya reer ma khair ayaa maqlay 100,000 ayaa اس سي soo qaatay shir jiraa'id bay bilaabeen shir jiraa'id baran ka dhaca mid ceel buu ka dhaca mid maxay ka dhaca isku daba xidheen haye maxay hadda ku doodayaan 100,000 ay soo qaadeen اس سي gobolada ka socda nimanka khaatumo eerada ka socda kontonkayga kun waa inoo keenan xisaab xil male diikan bilaay dhacay daaqadii ka timi dowladda federaalka Soomaaliyeed oo dhammayd $100,000 loogu talagalay gobolka Sool iyo Sanaag kuna soo dhacday gacanta guddiga abaaraha gobolka Sool inaan inaan ka soo gaarin gobolka Sanaag waxa loo weysiinay حساب حلم له حساب حلم له كدعدي ايا كدعدي هي ما هو الا حساب تمام لكن غير ماخر سؤال شو حوي ايغو waxa weydiisanayay Puntland arkameys lama markaba ama lacag ku haysta aye iyagoo Somaliland lacag ku haysta arkameys labadii boqol ee la siiyay kun ee la siiyay Somaliland kama daba hadal juqal daba wada aye boqol kontonkii la siiyay Puntland kama daba hadal kama laga maad maxaa boqolkan u tusay خاتمه اي iyo waxay shir jiray qabtaan ama ay siyaasadaba ay u soo istaagaan marka reer khaatumo ay hadlaan ama ay action qaadaan ay bayaan shir jiray qabtaan waxaan u sheegnaa reer khaatumo hadda waxay bartaana soo dhigin ay marka reer maakhir ama siyaasadda ha ka qayb galaan si bareera ما sheegtaan inay Puntland yihiin ma sheegtaan inay Somaliland yihiin ma sheegtaan inay khaatumo la midoobayaan meel laba kama soo galaan siyaasadii meel la kama tirsan kiinkii hurdada Soomaaliya oran jiray diyaasabam ay wada laga hurdaan 10 saac marka dhawaato soo kacayaan oo xagga la isla maray marka waxa loo baahan yahay nimanka imka lacag ku qabsanayaan shirka jiraa'id ay sameeysanayaan lacagtooda iyaga la soo baxay magacu doonay ma ku soo qaataan iyaga xamar tagay xildhibaanadoodii baa hadlay madaxweynaha iyaga u tagay yaadar gar ilaahay ba taqaanaa gambo inta la kuma waxa kuma leh asad marka marka hadashid ayaa wax lagu siinaya laakiin marka walaalka wax soo qabto waxaan maqli jiray ciyaalka marmar ba carruurnimadii shilin baad helaysaa moogta adaa helay mid ku dhinac halka maraya wuxuu qoranaya kula lihi marka sheekada reer maakhir waa kula lihi raashkeena maanta intaas ku soo gabagabaya ali aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadsan tahay halka waxa noogu soo gabagabay waa kaftankii siyaasadda iyo Ali Xaraare waanigu ah Yaasiin Ducaali waxaan ka tegayaa sidaa yahay nabad gelyo